إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan ku soo jirnay darsigii ku saabsanaa tafsiirka quraanka kariimka ah ayaynu ku soo jirnay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim afatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون waxaan ku soo jirnay oo aan soo dhex soconnay aayadihii ka hadlayay qisaskii ku saabsanaa reer banu Israa'iil ku saabsanaa iyadoo marba uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhinac inaga tusinhayo nimanka makriga iyo xumaanta ku jirta uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala marba uu dhan inaga tusinhayo alla wuxuu leeyahay afatadma'una ma waxaad damcaysaan an yu'minuu lakum inay idinka idiin rumeeyaan oo nabi Muxamed risaaladiisa ay idinku waafaqaan kitaabkan munazalka ah inuu yahay kitaab munazala inay idiin rumeeyaan miyaad damcaysaan walxaal qad kaana ay ahaadeen fariiqun kooxdaasoo minhum iyaga xaggooda ka ahaaday yasmacuuna kuwa maqla kalaam allaahi ilaahay kalaamkiisa kuwa maqla waa tawraade huma yuxarifuunahu haddana kalaamka ilaahay ay bedelayeen min bacdi maa caqaluuhu kalaamkaa intay fahmeen kadibna ay bedelayeen walxaal hum iyaguna yaclamuuna arrintaa ay ku cilmi leeyihiin oo ay og yihiin oo ulakac ay u samaynhayaan alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta isagoo la khidaabi buu ilaahay wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ahow ma waxaad u malaynhaysaan yahuud inay idiin rumaynhayaan nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay nabi xaq ah kitaabkan uu alla soo dejiyeyna inuu yahay kitaab munazala yahuudi inay idiin rumayn miyaad u malaynhaysaan waa dadka dhaqankooda iyo dabeecadoodu ay ahayd kitaabkii tawraad ee ilaahay uu soo dejiyey intay maqlaan oo ay fahmaan bay haddana bedeli jireen yani dadka dhaqankooda uu sidaa yahay oo iyagoo kitaabkii ilaahay og inuu kitaabkii ilaahay yahay iyagoo u cilmi leh taxriif iyo tabdiil ku samaynhayay miyaad u malaynhaysaan hadda inay kitaabkan uu ilaahay soo dejiyey ee nabi Muxamed uu ku soo dejiyey xaqnimadiisa inay idin rumaynhayaanna u malaynhaysaan saas Allah subhanahu wa ta'ala tawraad waxay ku sameeyeen yahuudi waxay ku sameeyeen wax alla wixii rabitaankooda
ay isdhaheen wuu ka hor iman hayaa way ka bedeleen naqsi way ku sameeyeen ziyaadana way ku sameeyeen tabdiilla way ku sameeyeen oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam meelihii ka hadlayay sifadiisa meelihii tilmaamayay way bedeleen mayna ka goynina way bedeleen oo waxyaabo kale ku qoreen oo tilmaantii nabiga aan ahayn oo ay leeyihiin nabiga aakhiru zamaan la sugayo tilmaamahaasuu lahaa waana tilmaantii nabi moxamed aan ahayn wayna ogyihin arrintaay waa ulakac wey afatadmacuuna ma waxaad damcaysaan ood rajaynhaysaan an yu'minuu lakum idinka inay idiin rumeeyaan walxal qad kaana ay ahaadeen fariiqun kooxdaasoo minhum iyaga xaggooda ka ahaaday yasmacuuna kuwa maqla kalaam allaahi ilaahay kalaamkiisay maqlayeen towraad waay uma yuxarifuunahu haddana kalaamka ilaahay way taxriifinhayeen min bacdi maa waqti bay taxriifinhayeen caqaluuhu kalaamka ilaahay ay fahmeen walxaal hum iyaguna yaclamuuna ay yihiin kuwa arrintaa u cilmile khada kama ahayn nisyaanna kama ahayn ee ku talagal bay ka ahayd arrintaas waidaa laquu markay la kulmaan yahuud aladiina kuwa aamanuu alliya nebi rumeeyey markay la kulmaan qaaluu waxay dhahayeen aamanaa ilaahay baan rumaynay waidaa khalaa markuu la goonin noqdo bacduhum iyaga barhkood ilaa bacdin barh markuu la goonin noqdo qaaluu waxay dhahayeen atuxadithuunahum saxaabada miyaad uga sheekayn haysaan bimaa shayga fataxa allaahu alla uu furay calaykum idinka dushiinna uu idiin furay liyuxaajuukum si ay idinkula xujatamaan bihi maagaa cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna miyaydaan wax kala garanaynin yahuud markay saxaabada ay la kulmaan oo mu'miniinta ay la kulmaan waxay dhahayeen ilaahay baan annakuna rumaynay saasay dhahayeen marka uu iyagu ay isu gooni noqdaanay meel isugu tagaanna waxay isku canaanan hayeen war waxa ilaahay idinka uu idiin furay oo towraad ilaahay uu idinku sheegay oo aad towraad ku haysaan oo ah sifada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam miyaad uga sheekaynaysaan si maalinka qiyaamo ilaahay agtiisa ay idinkula xujatamaan oy u dhahaan ilaahayow yahuudi iyagoo oo og nebi moxamed nebinimadiisa iyagoo og kitaabka lagu soo dejiyey inuu xaq yahay bay iskaga leexdeen ma inaysaan qiyaamadayna dhahaanba yaad rabtaan bay leeyihiin caqligu hadduu dhumo waa wax aad u dhib badan caqligu hadduu dhumo waa wax dhib badan iyagiibaa waxay isku canaanan hayaan dadkan mu'miniinta ah ee saxaabada ah waa saxaabatu rasuule ha u sheegina tilmaamaha nebi moxamed uu leeyahay maalinka qiyaame ilaahay waxay ku dhahayaan iyagoo nebi moxamed tilmaantiisii haya oo og rasuulnimadiisa oo og xaqnimadiisay ka leexdeen maalinka qiyaamay saa ilaahay agtiisa ka dhahayaane ha u sheegina leeyihiin ilaahay baa u jawaabaya subxaana wa tacaala waidaa laquu yahuudi markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu alliya nebi rumeeyey mu'miniinta markay la kulmaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay annakuna waidaa khalaa bacduhum barhkood markuu la gooni noqdo ilaa bacdin badh uu la gooni noqdona qaaluu waxay dhahayaan atuxadithuunahum mu'miniinta ma waxaad uga sheekayn haysaan bimaa shayga fataxa allaahu alla uu furay calaykum idinka uu idiin furay cilmiga ilaahay uu idin siiyey ee towraad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka siiyey miyaad mu'miniinta u sheegaysaan liyuxaajuukum si ay idinkula xujatamaan bihi maaga cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ay idinkula xujatamaan afalaa tacqiluuni miyaydaan wax kala garanaynin maxaad sidaa u yeedaysaan allah wuxuu leeyahay awalaa yaclamuuna yahuudi miyayna ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay siraysan hayaan
wamaa yuclinuuna waxa ay muujisan hayaanna ilaahay inuu og yahay war miyayna ogeyn marka ay iyagu isna hayaan mu'miniinta yaan loo sheegin sifaadka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aayadaha ka hadlaya sifaadka nebi moxamed ee towraad ku yaalla yaan loo sheegin mu'miniinta markay leeyihiin maalinka qiyaamay idinkula xujaytamiye ha u sheegina markay leeyihiin ma waxay u malaynhayaan inay ilaahay ka dhuman karaan may u malaynhayaan miyayna ogeyn ilaahay inuu sirtooda og yahay waxa ay siraysan hayaan iyo waxa ay muujisan hayaanba ilaahay inuu og yahay miyayna ogeyn awalaa yaclamuuna miyayna ogeyn anna allaaha alle yaclamu inuu og yahay maa shayga yusiruuna ay siraysan hayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisan hayaanba wa minhum yahuudda waxaa ka mid ah ummiyuuna kuwa aan waxna qorin waxna akhriyin ummiyiintaasoo laa yaclamuuna aan ogeyn alkitaaba kitaabka towraad aan waxba ka aqoonin ilaa amaaniya yididiilooyin mooyaane wa in hum maa hum iyaguna ma ayna ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynhaya mooyaane yahuuddu labay u kala baxaysay niman waxay ahaayeen nimankii axbaarta ahaayee cilmiga lahaayee towraad yaqaana ee culimmada u ahaa bay ahaayeen kuwana dee waa kuwii caamada ahaayeen waxba aqoonin kuwan marka caamada ah kitaabka towraad waxba ka garan mahayaan laakiin axbaartaa waxay ugu sheekeeyeen waxyaaba aan jirin bay ugu sheekeeyeen wixii bay marka iska haystaan axbaartaa waxay ku yidhaahdeen innaku waxaynu nahay shacbullaahi almukhtaar baynu nahay innaku waxaynu nahay abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu innaka la ina cadaabi mahayo 40 maalmood ee dibiga aynu caabudnay intuu muuse ku maqnaa munaajaadka ilaahay intii aynu caabudnay dibiga intaan u baa la ina cadaabaya waxaasay ugu sheekeeyeen wixii bay marka iska haystaan kuwaas iyagu waa ummiyiin towraad ma yaqaanaan laakiin waxay haystaan wax ay kuwa culimada u ahaaye ugu sheekeeyeen bay iska haystaan oo been hawaas ah wa minhum yuhuudda xaggooday ka ahaadeen ummiyuuna kuwa aan waxna qorin waxna akhrinin kuwaasoo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan aqoonin towraad ilaa amaaniya yididiilooyin mooyaane wa in hum maa hum kuwaasina ma ayna ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa wax malayn mooyaane ee wax kale mayna ahaanin fawaylun waadi naareed liladiina kuwii buu u ahaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabka qori biaydiihim gacmahooda kitaabka towraad ku qori ee taxriifka ku samayn uma yaquuluuna haddana ku qowli haadaakani min cindi illaahi ilaahay agtiisu ka ahaaday liyashtaruu si ay ugu gataan bihi kitaabka ay qoreen hamanan lacag qaliilan oo yar fawaylun waadi naareed lahum iyaga ayuu u ahaaday mimaa kii xaggiisuna uga ahaaday katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu wawaylun waadi naareed lahum iyaga ayuu u ahaaday mimaa kii xaggiisuna uga ahaaday yagsibuuna ay kasbanhayaan alla wuxuu ilahi subxaana wa tacaala waxaa waadi naareed u ahaaday oo cadaabka ilaahay geli kuwa kitaabkii towraad gacantooda ku qori maxaa laga wadaa intay kitaabka soo qaadaan yay meel alla meesha waxay iyagu waxay rabaan ay isleeyihiin way ka hor iman bay iyagu bedelayeen way qorayeen marka wax kale ku bedelayeen aayaadkii rajmiga aayaadkii qisaasta aayaadkii wax alla waxayna rabin ka hor iman hayay way bedeleen oo wax kale meesha ku bedeleen aayaadkii ka hadlayay nebi muxamed soo bixidiisa nebi muxamed sifadiisa kitaabka qur-aanka ah soo dejintiisa wax alla wixii ka hadlayeyna way bedelayeen ilaahay baa marka wuxuu leeyahay kuwaasi intay kitaabkii towraad iyagu gacantooda ku qoraan oo ay say rabaan u qoraan
يا هدنا وحيدها وحي أي قرآن بوحيدها وتوراد واي توراد ويكون هاي ذاتك إلهي وحولي يا ما حيساوي ليا الدنيا يرادين هيان إلا أن ذاتك الوحي هيان ذات علماء وذاتك يجو هجامية وذاتك يجو وحوشيغا وإياغا لقدم بيها هيان منصب كوذي مركا إلاشان هيان الدنيا يرادين هيان لعق يربي وحاكو قدن هيان ألا وحولي وهذه النار وحوها هذي كوا كتابك التوراة قعنته هذا كوب بدل وحونا أقوها هذي وهذه النارد قرآن كان بينتا أي سمين هيان يوحن حن أي كسبان هيان بأقو سقناضي فويل وهذه النارد للذين كوي أيوها هذي يكتبون قري الكتاب كتابك بأيديهم قعمه هذا كو قري ثم انت كذب يقولون هدنا كو قولي هذا كان وكي أي قرآن من عند الله إله أكتس أيوك هذا ليشتروا سئي أقوقتان به كتابك ثمنا لعق قليلا أو ير فويل واد النار لهم إياك أيوك هذا مما كي حجيسنا أقع هذا كتبت أي قرتي أيديهم قعمه وويل واد النار لهم إياك أيوك هذا مما كي حجيسنا أقع هذا يكسبون أي كسبا هيا وقالوا يهودي وحي لهذين لن تمسنا نتابا ميسو النار نتابا ميسو إلا أياما مالما مويانئ مالمها سو معدودة لتريي قل وحاد هذا النبي محمد اتخذتم مياس ميستين عند الله إلهي أكتس عهدا بلن وهذا بلن سميستين فلن يخلف الله إلهي مجوب يليو كمبحيو أهدوا بلكيسا أم تقولون مسوحات كو قوليسان على الله إلهي دوشيسا ما شيء لا تعلمون أيضا أبين يهود بوحي لهذين أنكو هدان هاي يهود مالما يرون بنا العذاب إياه مالما هاسم حيهين مالمه أي دبي عابدين إنتا أمبالين عذاب لهذين إنكو وحينون هاي ضدوا إلهي دورتي بيدهدين أويالكين بان نبيالها بيدهدين أويالكين أيها نبيالها يو إيجا إنو شفاعية إنتي مركا إنو ديبدا عابدنا إنتا هم بالله إننا جري فالوحا الله يسوه شاكين فيه هذا النبي محمد إلهي مياد بلن لقشين ما إلهي باد بلن لقشين إنو مالمات ترسنون إذن عذاب أيو إلهي مات كورا بلنتين هذا ساكو رب اللانتين إلهي بلانتك ما بحو هذا إلهي كرب اللانتين إنو إلهي مع المير إذن عذاب أيو إلهي بلانتك ما بحو مسوح أيضا علمي أورهين بعد إسكاك قوليسان فسمعنو بلا فيرس هدو ابن آدم كو طريق حنقو قاضو وهالس وي إن النبي يعقوب أي كفر عمين نبي يعقوب نؤوها إن النبي إسحاق نؤوها إن النبي إبراهيم ساسي وحقان نفتوضا كل جدريين أويالكين بان نبيال أها سيدا درتد وحاوي إنكو وحينون هاي أبناء الله وأحباؤه ولي وحي للتاغيين ولي وحي أي لتاغيين وقالوا يهودي وحي لهذين لن تمسنا إنما تابان دونتو النار ناري إنما تابان دونتو إلا أياما مالما مويانئه مالمها صور معدودة لتريي والوحاد هذا النبي محمد اتخذتم موحاد يالتين عند الله إلهي أكتس عهدا بلن فلن يخلف الله ألا مجوب يالي عهده بلن كيس إلهي هداد بلن لقاشين إلهي بلن تكبيح معيو أم تقولون مسوحاتكو قوليسان على الله إلهي دوشي سما شيء لا تعلمون إذا نقين ووحن آتكو شيكين هيسان ووح أيضا علم أولهين واسدا سوحا أيكو شيكين هيان ووحينا علم أولهين بلا
arrinku saa ma aha man kasaba qofkii shaqaysta sayi'atan xumaan oo waaxaadad ay koobto bihi manka khadii'atuhu gafafyaalkiisu ay koobaan fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyaguna fiihaa naarta yay khaaliduuna ku waarayaan ilaahay baa u jawaabay qofkii xumaan shaqaysta nooc dooni ha ahaado ama yahuud ha ku abtirsado ama qof kale ha ku abtirsado qofkii xumaan shaqaysta oo weliba xumaantiisu ay hareerayso waa qof aan iimaan lahayn qofkaas qofku hadduu iimaan leeyahay xumaantiisu ma hareeraynayso xumaantiisu ma koobayso hadduu dhinac xumaani kaga timaado dhinac baa u fayow oo iimaan buu leeyahay qofka ay xumaantu hareerayni waa qofka gaalkaa wey aslan qof iimaan leh xumaani ma hareerayn hayso qofkay xumaantu hareerayn waa qofka aan iimaanka lahayn naartuu gelayaa wuuna ku waaraya balaa arrinku saa ma aha say moodayaan arrinku ma aha yahuudi man kasaba qofkii shaqaysta sayi'atan xumaan oo wa axaadal ay koobto bihi isaga khadii'atuhu khadii'adiisa iyo gefkiisu uu koobo fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeday khaaliduuna ku waarayaan waaladiina kuwa aamanuu alliya nabi rumeeyey oo wa camiluu camal falay alacmaala acmaashii alsaalixaati ee wan wanaagsanaa ulaa'ika kuwaasina asxaabu ljanna jannada asxaabteeda weeyaan hum iyaguna fiihaa jannada dhexdeeday khaaliduuna ku waarayaan waa laba kelimo aada u kala fog dadka ilaahay uu iimaanka siiyey haddana iimaankii camal wanaagsan ku daray iimaanka waxaa la rabaa inuu qofku uu camal wanaagsan ku daro dadka ilaahay uu iimaanka siiyey ee iimaankoodiina camal wanaagsan ku daray kuwaasi waa asxaabuuljanna jannay gelayaan jannada ayayna ku waarayaan qofka iimaan kale haddii ankee akhdaa ay ka dhacdo oo naarta la geeyo si loo dahiro marka dambe naarta waa uun laga bixin jannada unbuu qofkaasi ku dambaynhayaa dadka qaarkoodna dee naariba taaban mayso kuwa allah inagu daro aniga qofka haddiiba la cadaabo soo dhib kuma dhicin nin beri dhalinyaro oon isnaqaanay oo aad u khaldana ayaa waxaan ku yidhi niyo waxaan iska daa markaasaa wuxuu igula dooday in uu la yaraha cadaabi doono oo marka dambe janno la geenayo yacni anu iimaan baan leeyahay buu yidhi salaadan aan ka tegiyey iyo waxaan hadda aan samaynhayo waxba ha fiirinin marka dambe janno un baa la igeyn buuri waxaan ku war haddii lagu cadaabo maxaa kaa soo hadhiba haddaad ogolaatayba in lagu cadaabo maxaa kaa soo hadhi baraka beele inuu qofku saa u fikira maaha inuu qofku ku fikiro ha lagu cadaabe meelaha iska marmar marka dambe janno un baa lagu geyne fikir fiican maaha fikirkaas waaladiina kuwa aamanuu alliya nabi rumeeyey oo wa camiluu camal falay alacmaala acmaashii alsaalixaati ee wan wanaagsanaa ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeyaan hum iyaguna fiihaa jannada dhexdeeday khaaliduuna ku waarayaan wadkuruu xusuusta reer banuu israa'iilow id wakti akhadnaa aan qaadnay miihaaqa banii israa'iila reer banuu israa'iil ballankoodii aan qaadnay oo maxaan ku qaadnay laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaha ilaahay mooyaane wa bilwaalidayni labada waalidna u ixsaan sameeya ixsaanan u ixsaan samayn wadilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ana ixsaan u sameeya walyataamaa agoommadana ixsaan u sameeya walmasaakiini masaakiintana ixsaan u sameeya waquuluu dadkana waquuluu kula hadla linnaasi dadkana xusnan hadal wanaagsan kula hadla wa aqiimuu salaata salaadana ooga wa aatu zakaata zakadana bixiya humma tawallaytum waad jeedsateen ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minkum idinka xaggiinna ka ahaaday walxaal antum idinkuna mucriduuna kitaabkii iyo diintii iyo iimaankii aad dabada u jeediseen
ilaahay baa wuxuu leeyahay waree banu israa'iil waxaad xusuusataan ballantii aan idinka qaadnay oo ballanta ilaahay uu ka qaaday maxay ahayd ballanta uu ilaahay ka qaaday waxay ahayd ilaahay un caabuda laa tacbuduuna waa jumla tafsiiriya laa maxalla lahaa min alicraab min jihati naxwa oo waxay fasiraysaa akhadnaa miihaaqa bani israa'iil ay fasiraysaa waxa lagula ballamay waxaa weeye ilaahay un baad caabudaysaan labada waalidna ixsaan baad u samayn haysaan qaraabada ixsaan baad u samayn haysaan agoonta ixsaan baad u samayn haysaan masaakiinta ixsaan baad u samayn haysaan dadkana hadal wanaagsan un kula hadla dadkana hadal wanaagsan un kula hadla waxa reer banu israa'iil loo dardaarmayo soo ina kale laynoo dardaarmi maayo aniga ha isdhihin aayadahan iyo waxani reer banu israa'iil bay ku shaqalayihiin adaa lagula hadlaya rada u fiirso wuxuu alla leeyahay markaa kadibna waa jeedsateen oo ballankii ilaahay uu idinla galay waad ka jeedsateen in yar mooyaane eh dad yar ayaa ballankii ilaaliyey reer banu israa'iil wadkuruu xusuusta id wakti akhadnaa aan qaadnay miihaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballanyaalkoodii aan qaadnay oo waxaan ku qaadnay laa tacbuduuna ma caabudaysaan xagga lafdiga jumladu waa khabariya laakiin xagga macnaha waa nahyi laa tacbuduuna ha caabudina saas macnaheedu u dhigan yahay ila allaha ilaahay mooyaane wa axsinuu u ixsaan sameeya bilwaalidayni labada waalidna u ixsaan sameeya ixsaanan u ixsaan samayn wadilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaana u ixsaan sameeya walyataama agoommadana ixsaan u sameeya walmasaakiini masaakiintana u ixsaan sameeya waquuluu kula hadla linnaasi dadkana xusnan hadal wanaagsan kula hadla wa aqiimuu salaata salaada ooga wa aatuu zakaata zakadana bixiya uma tawallaytum waa jeedsateen ilaa qaliilan in yar mooyaane eh oo minkum idinka xaggiinna ka ahaatay walxaal antum idinkuna mucriduuna aad tihiin kuwa jeedsaday oo diinta ilaahay dabada u jeediyey wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti xusuusta akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballanyaalkiinnii aan qaadnay laa tasfikuuna daadin maysaanna ballanyaalkiinnii aan ku qaadnay dimaa'akum dhiigyaalkiinna walaa tukhrijuuna mana saaraysaan anfusakum nafafyaalkiinna ma saaraysaan min diyaarikum daarihiinnana ka saari maysaan uma aqrartum ballankaana waad qirteen oo waad ogolaateen walxaal antum idinkuna tashhaduuna makhraati aad ka tihiin inaad ballankaa qirteen ood ogolaateen ilaahay baa wuxuu kula ballamay reer banu israa'iil waxyaabaha lagula ballamay ee ilaahay uu sharciga uga dhigay waxaa ka mid ahaa ha isdilina dhiiggiinna ha daadinina guryahana ha iska saarin oo qaarkiin qaarka kale yuusan la dagaalin oo guryaha yuuna ka saarin ilaan hadduu dagaal dhaco waa la qaxayaa guryihii baa laga qaxayaa alla wuxuu leeyahay arrintaa waad qirteen waad ogolaateen idinkaana makhraati ka kitaabkii tawraad bay ugu qoran tahay idinkaa makhraati ka ah laa tasfikuuna iyaduna waa jumla tafsiiriya uun oo waxay fasiraysaa id akhadnaa miihaaqakum tii horan bay la mid tahay wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballayaalkiinna aan qaadnay oo aan ku qaadnay laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigyaalkiinna daadin maysaan walaa tukhrijuuna ka saari maysaan anfusakum nafafyaalkiinnana min diyaarikum daarihiinna ka saari maysaan uma aqrartum arrintaa waad qirteen walxaal antum idinkuna tashhaduuna makhraati aad ka tihiin uma antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwaasow taqtuluuna waxaad layseen anfusakum
nafafyaalkiinnii baad layseen wa tukhrijuuna waxaad ka saarteen fariiqan kooxdaasoo minkum xaggiinna ka ahaatay min diyaarihim guryahoodii baad ka saarteen tadaaharuuna xaal aad isugu tegaysaan calayhim iyaga dushooda aad isugu tegaysaan bilithmi xaal aad ku sugan tihiin dembi iyo walcudwaani cadowtinnimo wa in ya'tuukum hadday idin yimaadaan kuwa aad laynhaysaan aad guryaha ka saaraysaan usaaraa iyagoo la qafaashay hadday idin yimaadaanna tufaaduuhum waad furan haysaan wa huwa arrinkuna wuxuu yahay muxaramun waxaa laga xarimay calaykum dushiinna ikhraajuhum bixintooda oo guryahooda laga bixiyo ayaa laydinka xarimay afa tu'minuuna ma rumayn haysaan bibacdi alkitaabi kitaabka barhkii ma rumayn haysaan wa takfuruuna ma ku gaaloobaysaan bibacdin badhna ma ku gaaloobaysaan famaa jazaau man qof jazihiisu muxuu yahay yafcalu samayn daalika kaaga oo minkum xaggiinna ka ahaaday ilaa khizyun hoog mooyaane oo filxayaati nolosha dhexdeeda ahaaday addunyaa ee dhow wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeedana yuradduuna waxaa loo celinayaa kuwa saa u dhaqmay ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka ka ugu daran wama allahu ilaahayna ma uuna ahaanin bigaafilin mid halmaansan camaa tacmaluuna waxaad samaynhaysaan hadda u fiirso nimanka lagu magacaabo reer banu israa'iil kitaabkii towraad bay hayeen waxay hayeen nabigii la sugaya wakhtigiisu inuu dhow yahay waxay hayeen nabigaasi inuu makal mukarama ku dhalan doono madiina almunawarana uu u soo haajiri doono ayay hayeen deegaankay deganaayeen bay ka soo guureen madiinay u soo guureen waxay ugu soo guureen nabigu markuu madiine yimaado inay rumeeyaan oy raacaan bay usoo guureen markii ay madiine yuhuuddu soo degaysay ujeeddadaasay u soo degeen nimanka hadda markii dambe waxaad aragta samaynhaya markii horey madiine iman hayeen waxay u yimaadeenba waxay ahayd nabiga oo aakhiru zamaan la diri doono inay iyagu dadka uga hormaraan oo iyagu ay rumeeyaan oo ay raacaan bay madiine usoo degeen waxay marka sameeyeen dadkani waxay ahaayeen dee dad makri badan dhulkana waxaa deganaa niman caraba oo mushrikiina deganaa oo aws iyo khasraj la yidhaahdo ayaa deganaa madiina si ay dhulka ugu noolaadaan oo dhulka looga eryin bay laba isu qaybiyeen qolana ree aws bay ku dareen qolana ree khasraj bay ku dareen waxay yidhaahdeen aynu labadan qolo la kala safarno mar walba aynu isku dirno dagaalun ha socdo si aynu usii noolaano mar walba marka labadan qolo way isku dhacayeen aws iyo khasraj iyagu marka kuwa aws la socdaayay xaggay dagaal ka soo gelayeen kuwana xaggan ay dagaal ka gelayaan dagaal baa meeshii ka dhici midka yahuudiga ah ee ree aws la socdaayay ka yahuudiga ah ee khasraj la socda wuu dilayay hadduu jaanis u helo arrinta marka allah uu ka hadlayaay waa arrintaa wey nimankan marka waxaa towraad ugu qoray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu sharci uga dhigay inayna isdilin mid iyaga ka mid a haddii la qafaashana lasoo furto waxay marka sameeyeen labadan qolo markay la kala safteen dagaalka labadan qolo dhex mari bay isku dilayeen laakiin qof iyaga ka mida markii la qabsado waxay u wada sacyin hayeen oy u wada ordayeen labada dhinacba hadday rabaan ha jireene qofka in la soo daayo ilaan waxani wuxuu ahaa makri ay iyagu degeen buu ahaay marka wixii la faray soo furashada oo ah maxbuuska in lasoo furto besay ka hayeen wixii kale way iskaga tageen taasuu marka ilaahay subxaana wa tacaala aayadaha kaga hadlaya uma antum idinku haaulaai iyo haaulaai kuwaasow waa kuwa la jooga nebi moxamed iyo saxaabada oo zamankooda jooga ayaa lala hadlayaa uma antum idinku haaulaai iyo haaulaai kuwaasow taqtuluuna waxaad dilaysaan anfusakum nafafyaalkiinaad dilaysaan wa tukhrijuuna waxaad saaraysaan fariiqan kooxdaasoo minkum xaggiinna ka ahaatay min diyaarihim guryahooda aad ka saaraysaan tadaaharuuna xaal aad isugu tegaysaan calayhim dushooda aad isugu tegaysaan jumla xaaliya wey bilithmi xaal aad dembi ku sugan tihiin macnaha aad isuga fiiri tadaaharuuna xaal aad isugu tegaysaan calayhim dushooda kuwa guryaha laga saari bilithmi xaal aad dembi ku sugan tihiin iyo walcudwaani cadowtinnimo
وإن يأتوكم هدي إذين يمادان كوا أدبريها كساريسان أدليسان وصارا إياه لقفاشي هدي إذين يمادان تفادوهم وأظفران هيسان وهو أرنكنا وحويهي محرم وحا وهو شأنكنا وحويهي محرم وحا لغا حرمي عليكم دشينا إخراجهم بحين توضا أو قريو هذا لغا بحيانا والله إذن كحرمي وحيابه مركا الله إذن كحرمي وحنا واد إلالين هيسانو وإن محابيس لسود دايو تدك لقفاشي وحنا واد كو حد قد بيسانو قريهنا واد كساريسان وانا الدليسان أفتؤمنون من رمين هيسان ببعض الكتاب كتاب كبركي ما رمين هيسان وتكفرون ما كو قالوا بيسان ببعض الكتاب كبركي ما كو قالوا بيسان سيدي يهودي سمايين بي مسلمين تمان تجوغنا السمين هيان كتاب كي قرآن كا قيبا كميدنا وينو هيسانا قيبا كميدنا وينو اسكاقات تاقناي لغو ما دقمايو ونيدا على صوماليدو وحي مهما إبنا كدقان جيرين مركا اللي يدادو aynu sharciga ku xuutanno sharciga aynu ku kala baxno ayaa waxay dhihi jireen ma xeer baan ku kala baxaynaa maxaa jira marka dadana waxay dhahayaan kitaabka waynu ku dhalanaayo kuma dhaqanno saas ku dhahayaan aan ku dhalanaa waxa laga wadaa islaamaha lagu meerinaya kii xanuunsado quraan baa lagu akhrinayaa xoolaha loogu xirsi xidhayaa xaggaasan quraanka ka haysanaa bilay laakiin ku dhaqan markii la yiraahdo maya soo dhaqankii yahuud ma marka ودقنك يهود وي maxaa maanta marxaladda maanta aan joogno maxaa ina geeyay dullinimada maxaa ina geeyay adoomada ilaahay baa wada abuuray ilaahay wuxuu ku kala jecel yahay uun sida ilaahay subxaanahu wa tacaala loo raali gelinayo haddii marka dadka kale ay la mid noqdaan muslimiintii hadday ummadaha kale la mid noqdaan oo ilaahay ay cadho geliyaan waxba ilaahay ku fali maayo khaliifada ilaahay wuxuu mar walba siin hayaa dadka isaga raali geliya ayuu siin hayaa balada u fiirso afatu'minuuna ma rumayn haysaan bibacd alkitaabi kitaabka barhkiis ma rumayn haysaan watakfuruuna ma ku gaaloobaysaan bibacdi lbadna ma ku gaaloobaysaan famaa jazaau man qof jazihiisu muxuu yahay yafcalu samayn daalika kaaga oo minkum xaggiina ka ahaaday ilaa khizyun hoog mooyaane oo fil xayaati nolosha dhexdeeda ahaaday xayaatada addunyaa ee dhow wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeedana yuradduuna waxaa loo celinayaa kuwa ilaa ashaddi alcadaabi cadaab ka ugu daran baa loo celinayaa wama allahu ilaahayna ma uuna ahaanin bigaafilin mid halmaansan camaa tacmaluuna waxaad samayn haysaan ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa wey اشتروا صوغتي الحياة حياة صوغتي حياة الدنيا دو بالآخرة بترك الآخرة آخرة كتجد هذا كصوغتي فلا يخفف لغفض ضين مهيو عنهم حقو ذا العذاب عذابك لغفض ضين مهيو ولا هم إيقنا ما أين أهانين يسرون كولو قرقاري آياتها ريب بنو إسرائيل كسعود أوردن adiguna haddii aad siday u dhaqmeen aad u dhaqanto lamid baad noqon hays lamid baad noqon adiga oo adduunyo raadin aakhiradaada waxa yeelin adoo adduunyo raadin in badan adoomada iyagoo adduunyo raadin bay aakhiradooda baabi'iyaan ay wax yeelaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye ishtaraw soo gatay alxayaata nolosha addunyaa dhow بالآخرة بترك الآخرة آخرة كتجد هذا كسوقتي فلا يخفف لغفض ضين مهيو عنهم حقوذا العذاب عذابك لغفض ضين مهيو ولا هم يقنا ما أين أهان يرسلون كولو برقاريو ولقد أتينا وحاسيني موسى النبي موسى وحاسيني الكتاب كتاب كي توراة هاوانسيني وقفينا وحان كدب جيني من بعده سجى قداشيسا بالرسل الرسل بان كدب جيني اون راعيني وآتينا وحان سيني عيسى نبي عيسى وحان سيني
عيسه ابن مريم ويل كذا البينات حجوي عد بانو سيني وأيدناه نبي عيسى وحان كحوجني بروح القدس ملك الجبريل بان كحوجني أفكلما مركزتو جاءكم يهودي أؤذيه مادو رسول بما شينا أؤذي لي مادو لا تهوى أين الدونين أنفسكم نففيالكين أين الدونين استكبرتم واد اسكبرين هيسان ففريقا كوحنا كذبتم واد بينين هيسان وفريقا كوحنا تقتلون واد ليسان الله يوحي سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام waxaan siinay kitaabkii towraad baan siinay waxaa kaloon raacinay nabi muuse rusul baan raacinay nabi ciise iyo nabi muuse rusul badan baa u dhaxaysay rususha qaarkood isku zaman bay ahaayeen oo waxaa laga yaabaa laba rasuul inay zaman wada joogeen sida nabi zakariya nabi yaxya labaduba hal zaman bay wada joogeen ambiyadaasna waxa weeye ilaahay baa garanaya cadadkoodii intay leeyihiin laakiin mufassiriinta qaarkood tiro badan bay sheegayaan idan alla wuxuu leeyahay nabi muuse kitaabkii towraad baan siinay rusulna waan raacinay nabi ciise iyo nabi muuse wax alla waxa rusule ee u dhaxaysay kitaabkii towraad unbay sharcigiisa hirgelinayeen kitaabkii towraad unbay sharcigiisa hirgelinayeen towraad unbuu dhaqanka iyo xukunku u ahaa nabi ciise wuxuu alla leeyahay waxaan siinay albayinaat xujooyin baan siinay xujooyin cadcad ayaan siinay buu alla leeyahay nabi ciise waxaa ka mid ahaa ixyaa ulmawtaa baa ka mid ahayd xujooyinka nabi ciise la siiyey khalqu dayr baa ka mid ahayd biidni illaah ibraa'u lagma baa ka mid ahaa iyo abraska biidni illaah ikhbaar oo waxyaabaha maqiibaadka ah uu ka warramaya ayaa ka mid ahaa waxyaabaha la siiyey inzaalu lmaa'idati min asamaa'i baa ka mid ahaa inzaalu linjiili calayhi baa ka mid ahayd bayinaat waxaaso dhan bayinaadka soo gelaya jooyinkaasu ilahi siiye subxana wa tacaala alla wuxuu leeyahay waxaa kaloon ku xoojinay nabi ciise malakul jibriil baan ku xoojinay ruuxdii dahirayd malakul jibriil waxaa marka isweydiin mudan malakul jibriil ma nabi ciise unbuu anigmaata ku khaas ahaa soo ilaahay iyo rusushoo dhan muuna u dhaxaynin malakul jibriil ileen anigii waxaa loo soo dhiiba waxyiga ee ilaahay waxyiga ka soo qaada ee rusushiisa soo gaadhsiiya malakul jibriil buu ahaa maxaa si gooniya loogu sheegay nabi ciise mufasiriintu waxay leeyihiin sida uu nabi ciise malakul jibriil u laazimay ma uusan rasuul kale u laazimin oo laga bilaabo markuu dhashay ilaa aakhirkiisa laga gaadho malakul jibriil nabi ciise calayhi salaam wuu laazimay isaga dhalashadiisii buu yaa laga soo bilaabay saasuu alla marka wuxuu u leeyahay waxaan nabi ciise ku xoojinay ruuxu lqudus alla wuxuu yidhi yahuuday mar walba oo rasuul uu idiin yimaado wax idinku aydaan rabinna uu idinla yimaado sanka ayaa taagaysaan ambiyada qayb waabad layn haysaan ambiyo badan bay laayeen nabi shucayb iyagaa dilay nabi zakari iyagaa dilay yaxya iyagaa dilay ambiyadu way laayeen marku way dhameeyeen kuwana waa beeninaysaan kuwana waa dilaysaan waa dhaqanka yahuud walaqad aatayna waxaan siinay muuse nabi muuse alkitaaba baan siinay waqafaynaa waxaan raacinay oon ka dabagaynay min bacdihi gadaashiisa birusuli rusul wa aataynaa waxaan siinay ciise ibna maryama ahaa albayinaati xujooyin cadcad baan siinay wa ayadnaahu ciise waxaan ku xoojinay biruuxi lqudusi baan ku xoojinay afakulamaa mar kasta oo jaa'akum yahuuday uu idiin yimaado rasuulun rasuul bimaa shayna uu idinla yimaado laa tahwaa ayna doonaynin
أنفسكم نففيالكينو استكبرتم واد اسكبرين هيسان ففريقا كو أنبياء كمدا كذبتم واد بينسان وفريقا كو احنا تقتلون وادشين هو الله يسان وقالوا وحيد هذا اليهود قلوبنا قلوب تنذو غلف ويدبولا تهي حق النبي محمد وضع قلوب تنذو ويكدبولا تهي بل قلوب تاذو مدبولا لعنة وحال لعنة هم إياك الله إلهي باللعنة بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا السبب كيدونا اللعنة فقليلا وحير ما أعاد أير يؤمنون الرمين أيام قالوا فيرس وحيد هذا اليهودي قلوب تنذو غلف لبا تفسير بين مفسرين تكوشي غيان تفسير وامدك حتى أينو مرني أو وحي ليهين وحاو النبي محمد ولاء حقه قلبي النبوة كذبوا لن يهي ملق ليلا مفسرين تقارقون وحي كفسر أيان وحي ليهين قلوب تنذو غلف وحاوي وخانضه علم ما كبوحه توراة با قلوب تنذا كبوح له سيدا درت علمي كلا ومباهنين مفسرين تقال باكو فسرين ساسي كوضان غلف ده وحي كوضان قلت غلف كسيدة وحال يرادا بيجدا انت يرى بيجدا المها مركان لقودين انت يرى بيجدا تاسا ليرادا اياكو مركان هذا وحي كوضان قلبك النبي ودبولن يحيو حق النبي محمد وضو قلبك النبي جري مهيو هذا تفسير كهوري اما قلبك النبي وحوي وخانده سيدا درت الخانده صورن بعلم لكم علمي كلام ما بهنين با قلبك النبي وخانده انت خانده ودن علمي لك بوح الله وحولي هي قلبي قودو مدبول الهي با لعنه الهي با كدعدي قال نماذا درتد بين اللعنات داس ugu dhacday marka wax maata waxay rumeynayaan ba iska yarba وقالوا waxay yiraahdeen qulubana qulubtanadu غلف ويدبولن tahay bal la'anahum Allah ilahi ba la'naday bikufrihim bisababi kufrihim bu la'naday faqalilan wahyar ma aad uyar yu'minuna rumeyn hayaan ولما جاءهم يهود مركي ولما غورتي جاء ويمدهم إياك كتاب كاسو من عند الله إلهي أكتس كهذي كتاب كاسو مصدق رومين أو لمدع لما كتاب ثلاثة كسرنا ذي معه معوضا وكانوا وحين بأهايين من قبل أول وحي أهايين يستفتحون كوكو قرقاق دلبا كتاب كاس على الذين كوين كيقر قاعد البيان كفروا قالوا بي فلما جاءه مركو يمد ما عرفوا وحي قرتين كفروا به ويكو كفرين فلعنة الله إله إلا عن الديسنا على الكافرين قال الدوش والهات الله وحولي هاي يهود مركو يمد كتاب أو من عند الله كتاب كاسي كتاب كي توراة بلميدي هاي لماذا توراة وحوها كتاب إلهي سود دجيي فرقان أو كتاب كالنبي محمد لو سود دجيي أنا وكتاب إلهي سود دجيي لبضوا بإلهي أكتيسي كي مادين لبضوا بمركز وحوم بيكها الليان ولبا انت أوسن إلهي النبي محمد صادرين نبي إيو كتاب كمنزل كأي جرجار كل البجرين وwaxay dhihi jireen markay la hadlayaan mushrikiinta oo kale waxay dhihi jireen nabigi aakhiru zaman la diri lahaaba soo dhow isaga ayaanu rumayn oo nu raaci markaanu isaga rumaynaanu idinka idin layn hayna oo aan maarta bita idinka aslayna culimada qaarkoodna waxay leeyihiin yastaftixuunada waxaa laga wadaa waxay dhahayeen ilaahayow kuwan mushrikiinta ee gaalada ah nabiga aakhiru zamaan la dirayo ilaahayow sababkiisa noogaga heli kuwan oo ilaahayow kuwan nooga gargaar alla wuxuu leeyahay wixii ay garteen markuu u yimid oo xaqa ahaa bay ku kufriyeen wasa garab mareen maxaa yeelay nabigii ayba
isagoon imaninba ay gargaar ku dalbayeen way yaqaaneen nabigaas laakiin markuu yimid way diideen walamaa jaa markuu u yimid hum iyaga kitaabun kitaabkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumayn limaa kitaab macahum iyaga macooda ahaaday wa kaanuu waxayna ahaadeen min qablu awal hore yastaftixuuna kuwa gargaar ku dalba cala aladiina kuwiina gargaar uga dalba kafaruu gaaloobay falamaa jaa'ahu markuu u yimid maa shay carafuu ay garteen oo xaq ah kafaruu way ku gaaloobeen bihi maaga falacnatullaahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina gaalada dushooda ha ahaato bi'sa waxaa baas lahaaday huwa shay baa baas lahaaday maa shay-an min shayin buuna u baas lahaaday maagaasoo ishtarow ay u soo gadeen bihi maaga anfusahum nafafyaalkooda ay u soo gadeen almaksuusu midka lagu khasisay bidami cayduna an yakfuruu waa inay ku kufriyeen bimaa shayga anzala allaahu alla uu soo dejiyey bagyan xasad dartiis oo maxay xasdayaan an yunazila allaahu ilaahay inuu soo dejiyey min fadlihi fadligiisa xaggiisa uu wax ka soo dejiyey calaa manna uu ku soo dejiyey yashaa uu doonayo oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida fabaa-uu waxay la noqdeen biqadabin cadho ayay la noqdeen oo calaa qadabin cadho dusheeda ahaatay welilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaas oo muhiinun weliba ihaaneeya alla wuxuu leeyahay waxaa baas leh waxa ay naftooda u gadeen oo naftooda maxay u gadeen gaalnimay naftooda u gadeen gaalnimo ayay naftooda u gadeen wuxuu ilaahay soo dejiyey bay ku gaaloobeen maxay ugu gaaloobeen xasad nabigu marba hadduu iyaga noqon waayey oo reer banu israa'iilba uu noqon waayey xasad baa galay waxayna xasdayaan ilaahay fadligiisa inuu soo dejinhayo qofkuu rabana uu ku soo dejinhayo ilaahay baa fadligiisa qofkuu raba siiya cadho oo cadhadii abay la cadho oo cadho saaran bay la noqdeen ilaahay baa aada ugu cadhooday bi'sa waxaa baas lahaaday meeshaa istasaarka aada isuga ilaali min jihati naxwa waxoogaa ragkaa ku jirta aad marka dhigaha u fur bi'sa waxaa baas lahaaday huwa shay baa baas lahaaday waa faacilkii bi'sa maa shay-an min shayin buuna u baas lahaaday maadu tamyiiziye waa bi'sa waxaa baas lahaaday huwa shay baa baas lahaaday maa shay-an min shayin buuna u baas lahaaday maagaasoo ishtarow ay u soo gadeen bihi maaga anfusahum nafafyaalkooda ay u soo gadeen jumlada ishtarow waa sifa oo waxaad ka sifayn maada tamyiizyaad ka sifaynaysa an yakfuruuna waa maqsuuskii wey bi'sa waxaa baas lahaaday huwa shay baa baas lahaaday maa shay-an min shayin buuna u baas lahaaday maagaasoo ishtarow ay u soo gadeen bihi maaga anfusahum nafafyaalkooda ay u soo gadeen almaksuusu midka lagu khasisay bidami cayda midka lagu khasisayna an yakfuruu waa inay gaaloobeen bimaa kii ay ku gaaloobeen anzala allahu alla uu soo dejiyey bagyan liajli bagyin xasadnimo darteed bayna ugu gaaloobeen oo ay xasdayaan an yunzila allahu alla inuu soo dejinhayo min fadlihi fadligiisa xaggiisa uu wax ka soo dejinhayo calaa manna uu ku soo dejinhayo yashaau uu dooni oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida fabaa-uu waxay la noqdeen biqadabin bay la noqdeen oo calaa qadabin cadab dusheeda ahaatay welilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinu wax ihaaneeya waidaa qiila lahu markii loo yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa shayga anzala allahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay dhahayaan nu'minu waxaan rumaynhaynaa bimaa shayga unzila lagu soo dejiyey calaynaa dushannada wayakfuruuna way gaaloobayaan bimaa shayga waraa'ahu ka iyaga lagu soo dejiyey gadaashiisa ku sugnaadayna way ku gaaloobayaan wa huwa midkaasina alxaqu xaq weeyaan musadiqan xaal uu rumaynhayo limaa kitaab macahum iyaga macooda ku sugnaaday qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow haddaad towraad rumayseen falima taqtuluuna war maxaad u laynhaysaan ambiya allah ilaahay ambiyadiisa maxaad u layseen min qablu awal in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa iimaan loo wax rumeeyey balu fiirso ilaahay baa wuxuu leeyahay
yahuudda markii la yidhaahdo rumeeya kitaabka alla uu soo dejiyey waxay dhahayaan annaku waxaan rumaynay kitaabkii horey loo soo dejiyey ee tawraad ahaa ayaan rumaynay wax alla waxa ka dambeeyena way ku kufrinayaan injiil bay ku kufriyeen kitaabkan furqaanna way ku kufriyeen labaduna waxa weeye tawraad un bay rumaynayaan waa waxyi samaawi kulligood wuxuu alla leeyahay nebi moxamedo waxaa dhahdaa tawraad haddaad rumaysan tihiin ambiyada ilaahay maxaad u layseen ambiyada ilahay ma tawraad baa idin fari inaad ambiyada ilaahay laysaan maya idin fari mayso waa waxaan jirin wey waidaa qiila lahu markii lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa shayga anzala allahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay dhahayaan yahuudi nu'minu waxaan rumaynhaynaa bimaa baan rumaynhaynaa kitaab unzila la soo dejiyey calaynaa dushannada wayakfuruuna way ku gaaloobayaan bimaa shayga habata ku sugnaaday waraa'ahu maaga la soo dejiyo tawraada wixii ka dambeeyena way ku kufrinayaan wa huwa midkaa la soo dejiyeyna alxaqu xaq weeyaan musadiqan xaal uu rumaynhayo limaa kitaab macahum iyaga macooda ku sugnaaday qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow falima taqtuluuna war maxaad u layseen anbiya allahi ilaahay ambiyadiisa maxaad u layseen min qablu awal hore maxaad u layseen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa iimaan leh wallahu aclam